casharkeena ingiriishka aan sii socon doono casharadan ingiriishka maanta casharkeena waxaa waaye question about price, macnaha su-aalaha ku saabsan ganacsiga. How much is the bus fare? macnaha lacagta baska lagu raacayo waa imisa. ninka baabuurka wada ama kirishbooga weydiinaya wuxuu leeyahay baabuurkan wada inaan raacaan rabaa, marka meeqaa lagu raacaya? It is 1000 shilling. waxaa lagu raacaa leeyahay ku shilin. baabuurkan waxaa lagu raacaa ku shilin oo kaliya. wuxuu leeyahay how much, wuxuu weydiinaa how much is the school fee? iskuulkan lacagtiisa waa imisa. macnaha waxaan ka hadlaynaa waxyaalaha qaabka dadka loo weydiiyo. okay, wuxuu leeyahay it is 30,000 shilling. wuxuu leeyahay 3,000 oo shilin Soomaali waaye. how much is a cup tea? koobka shaaxa waa imisa uu leeyahay. asagana wuxuu ugu jawaabayaa it is 2,000 shilling. is 1,000 shilling. waa ku shilin uu leeyahay koobka shaaxa. how much is a glass of water? galaaska biyaha waa imisa uu leeyahay. macnaha galaaska cabitaanka ku hadlaa waa imisa. it is 2,000 shilling. wuxuu leeyahay waa ku shilin. 2,000 shilling waa 2,000 oo shilin. how much is a bottle of Coca-Cola? bottle waxaa loo yaqaanaa dhalada. how much is a bottle? dhalada weliba ay wax ku jiraan, cabitaanka uu ku jiraa la yidhaha bottle. how much is a bottle of a Coca-Cola? waa imisa dhaladii Coca-Cola? it is 3,000 shilling. dhalada Coca-Cola waxaa la gadaa, wuxuu leeyahay waxaa la gadaa 3,000 oo shilin Soomaali ah. how much is a tin of a fish? waa imisa gasaca malayga ah. it is 10,000 shilling. waa 10,000 oo shilin Soomaali ah. marka casharkan saas waa loo fahmay.